السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان خيارتنا لا سocotay halka nagala socotaan waa juqraafiya fadlan hadii aad naga cusub tahay YouTube ka subscribe saar hadii aad nala socotayna like iyo share bay isugu darsi u gaara saaxiibo badan go Facebook gana follow saar share gareena si uu gaaro dad badan oo ka faa'iideysta maabinka inuu kaga hadlayno dalkeena Soomaaliya burburkii Soomaaliya waxa uu dhacay 1991 kadib markii uu cagihiisa kaga baxsaday madaxweynihii militariga ahaa ee dawladda dhexe ee Soomaaliya محمد سياد بري عاصمة dalka ee Muqdisho burburkani waxa uu sababay dagaal sokeeye kala daadasho dhaqaale iyo kala dambeyn la'aan ka dhacday guud ahaan dalka Soomaaliya intii uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre 1969 ilaa 1991 jabhada mucaarad ah ayaa ka bilaabmay dagaal ka dhan ah xukuumaddiisa jamhadii ugu horeysay waxa ay ka baxday dhuludug Puntland waxaana aasaasay korneyl ka soo haray kuwii amaamuday afgambigii 1978 fashilmay Abriil 1978 waxa dhicisoobay inqilaab la maagana in lagu rido xukuumaddii Siyaad Barre waxaana la toogtay 17 kamida ragay inqilaabkaasi lagu tuhmiyay inay agaasimeen waxa ku jiray rag la toogtay Korneyl Maxamed Sheekh Cismaan Cirro oo ahaa hogaamiyihii inqilaabka xilligaas ayuu Cabdullaahi Yuusuf ka baxay Soomaaliya maadaama uu kamid ahaa ragii ku jiray fulinta inqilaabkaasi inqilaabku waxa uu qorshaysnaa inuu dhaco Abriil 12 laakiin waa uu ka soo hormaray oo waxa uu dhacay taariikhdu markay ahayd Abriil 1978 waana dhicisoobay hadaba September 1978 Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa aasaasay mucaaradkii ugu horeeyay ee taariikhda dalka Soomaaliya waa jamhadii markii hore loogu wanqalay SSF taasoo bishii October ee isla sanadkaas 1981 isu bedeshay jamhadda SSDF goobaha ay kula dagaalantay dawladda Soomaaliya waxa kamid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud waxay saldhig ku lahayd gobolka Doolo ee dhulka Itoobiyaanku inaga haystaan caasimadiisuna tahay magaalada Wardheer dagaalo badan ayay galeen waxayna kula wareegeen horaantii gacaankooda magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin badan magaalooyinkii ay la wareegeenna waxa ugu caansanaa Balanballe iyo Goldogob oo ka kala tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud jamhadii labaad SNM Somali National Movement oo ka dagaalamaysay waqooyiga Soomaaliya gadaanna ka dhawaaqday inay kaga go'day Soomaaliya inteeda kale lana baxday isuguna yeedhay dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka dhaqdhaqaaqaysay gobolada Togdheer iyo waqooyi galbeed oo Burco iyo Hargeysa magaalo madax u yihiin guulihii ugu waaweynaa waxa ay gaareen 1988 oo ay ku guuleysteen inay gudaha u soo galaan carrigii uu ka arrimin jiray General Maxamed Siyaad Barre intii u dhaxaysay 1988 ilaa 1991 Hargeysa iyo Burco waxa ka dhacay dagaal la xunxun oo ay ku jiraan duqeymo dad rayida lagu laayay jamhaddu waxay saldhig ku lahayd gobolka Jarar oo ka tirsan gobolada Itoobiya inaga haysato magaalo madaxna ay u tahay Dhagaxbuur gulufkooda guduhu waxa uu soo xoogeystay markii bishii afraad ee 1988 Mingistu iyo Barre ay heshiis nabadeed kala saxiixdeen UNC waxay dawladda kacdoon kaga furtay bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya waa gobolada Mudug Galgaduud Hiiraan Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose ilaa Banaadir garabka military ee UNC waxa lagu dhawaaqay dabayaaqadii 1989 waxaana lagu aasaasay magaalada Mustaxiil Caydiid ayaa doorasho ay ka hor yimaadeen madaxweyntii UNC keligii isugu caleema saaray gudoomiyihii jabhadaasi asagoo maalmo ka hor ka soo kicitimay magaalada Delhi oo uu ahaa safiir iyo diblomaasi u fadhiya dawladda Maxamed Siyaad Barre bishii Agoosto 1990 Caydiid wuxuu sameeyay isbahaysi cusub oo uu la galay SNM Somali National Movement oo waqooyi ka jirtay iyo SPM Somali Patriotic Movement oo Jubaland iyo Bakool ka dagaalamaysay labaduba waxay ogolaadeen inaan wax wada hadal ah lala gelin xukuumaddii Barre ilaa si buuxda loo afgambiyo Agoosto 7 1990 jabhadihii SNM oo la aasaasay Abriil 1981 UNC oo la aasaasay 89 iyo SPM oo la aasaasay March 1989 ayaa u midoobay siday u tuuri lahaayeen xukuumaddii Siyaad Barre waxay sidoo kale isku raaceen in la dhiso dawlad ku meel gaar ah oo dalka maamusha kadib
kadibna la qabto doorasho qaran. bishii November 1990 ciidamadii UNC ee Caydiid ayaa hilfaha u qaaday ciidamadii 12aad ee xoogga Soomaaliya kuwaasoo deganaa gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan. ugu dambeynna saddexda gobol waxay gacanta u galeen jamhadii UNC ilaa laga soo gaaray 26 Janaayo 1991 UNC laga gaaro maalinkaasi waxay la wareegtay inta u dhaxaysa Mudug ilaa Muqdisho, taasoo keentay in maalinkaas 26 Janaayo Maxamed Siyaad Barre ay kaga adkaadaan magaalada Muqdisho cagana uu wax ka dayo. SPM ayaa Kismaayo iyo Baydhabo 1990 aakhirkiisii kaga adkaatay ciidamadii xoogga iyadoo gacanta ku dhigtay ilaa qaybo kamida gobolka Gado. burburkii Soomaaliya waxaa ka dhashay amni darro iyo dagaallo, kala qaybsanaan siyaasadeed, hoos u dhac dhaqaale, burburka adeegyada bulshada, kororka argagixisada, barakac iyo qaxootinimo. waxaa kale oo uu yeeshay saameyn caalami ah. guud ahaan burburka dawladda Soomaaliya waxa uu sababay dhibaatooyin ba'an oo ilaa maanta saameyn ku leh dalka Soomaaliya. haddaba ka soo qaad haddii dawladdii Soomaaliya ee 1991 Marya Calastu iyo Macawislaydu kaga adkaadeen xamar aan laga adkaan lahayn, maxaa dhici lahaa? aan eegno dhowr isbedel oo waaweyn oo maskaxdaada ka badan oo Soomaaliya ay ku tilaabsan lahayd haddii ay sii jiri lahayd. Soomaaliya waxay saameyn weyn ku yeelan lahayd siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada guud ahaan dalalka qaaradda Afrika. waxay ahaan lahayd dal leh xukuumad dhexe oo awood badan. waxaan marnaba suurowdeen inaynu aragno fawdada, dagaalada sokeeye iyo burburka hay'adaha dawliga ah ee dalkeenna. ma jiri lahayn kooxo hubaysan oo ah natiijadii u xumayd ee ka dhalatay dagaalka sokeeye. sidoo kalena ma soo baxeen kooxo kale oo qabiil isku magacaabay kuwaas oo maamullo ku samaystay hab aan sharci ahayn. waxaynan aragnayn kooxo kale oo soo baxa oo kala qaybiya dalkii shanta ahaa ee ay labada qurihii ka midoobeen. haddii dawladda Soomaaliya ay sii jiri lahayd, horumarka dhaqaaluhu wuxuu noqon lahaa mid la heer ah wadamada waaweyn, waxaana la saadaalinayaa inuu dhaafi lahaa wadamada Sacuudi Carabiya, Imaaraat, Kuwait, Koonfur Afrika, Algeria, Nigeria. waxa uuna foolaad u noqon lahaa guud ahaan wadamada qaaradda Afrika. waxaynu yeelan lahayn sirdoonka ugu adag uguna xoogan qaaradda Afrika, inaga oo la heer ahaan lahayn sirdoonada Masar, Nigeria iyo Rwanda. kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, garoomada, tekadaha iyo warshaduhu waxay ahaan lahaayeen kuwa la majeerto oo Afrika oo dhan ay la yaabaan. waxaynu ka hormari lahayn in ka badan 40 wadan oo kamid ah 56 wadan ay qaaradda Afrika ka kooban tahay. waxaynu ka sarreyn lahayn 33 dal oo Aasiya ku yaala. diyaaradii Somali Airlines ee la dhacday dawladda Soomaaliya waxay la teetal iyo tamar ahaan lahayd diyaaradaha Afrika tooda ugu sarreysa maanta oo ah Ethiopian Airlines. innaga oo kaalinta 15aad ka geli lahayn diyaaradaha ugu adeega wacan guud ahaan caalamka. dawladdii hore ee Soomaaliya waxay maalgelin badan gelin jirtay waxbarashada iyo caafimaadka. dii ay sii jiri lahayd, dad badan ayaa heli lahaa waxbarasho tayo leh iyo daryeel caafimaad, taasoo sare u qaadi lahayd nolosha bulshada Soomaaliya. waxaynu ahaan lahayn dal aad looga ixtiraamo caalamka dhexdiisa. dii aanu burburku inugu habsanna, waxaynu noqon lahayn dal leh xiriir adag oo caalami ah dunida dhexdeeda. waxaynu noqon lahayn dad iyo dal laga heebaysto. waxaa albaabada inagu soo garaaci lahaa inana aynu ka furi lahayn maalgashiyaal shisheeye iyo taageero dibadeed oo dheeraada. musiibooyinka ugu halisan ee ka dhashay baabi'ii nidaamkii Soomaaliya waa kala qaybsanaanta dalka iyo dadka. waxaana jira gobollo kamid ah dalkeenna oo isku dayay inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale. dii dawladnimadeenu sii jiri lahayd, midnimada gudaha dalka Soomaaliya waa ay xooganaan lahayd. ma jiri lahayn gobol la sheegta inay yihiin dawlad madax bannaan. Soomaaliya waxay hodan ku ahayd fanka, suugaanta iyo dhaqanka. wanaagga lagu majeerto ayuu ahaan jiray. dii dawladnimadii Soomaaliya ay sii jiri lahayd, dhaqanka Soomaaligu waa uu soo kabci lahaa, lagamana cabsi qabeen, baqdina kama joogteen in la waayo ama uu lumo hidaha afkeenna iyo afkeenna Soomaaliga oo khatar jiritaan wajahaya. guud ahaan haddii dawladda Soomaaliya aanay dhicin, dalku wuxuu ahaan lahaa mid xasiloon, lehna horumar dhaqaale, waxbarasho iyo caafimaad iyo fursado shaqo iyo nolol wanaagsan ay dadweynuhu iyo dhalinyaradu ku naalan lahaayeen. waxaan ahay Cabdi. waxaad igala socotaan juqraafi. haddii aad ku cusub tahay bogga, fadlan subscribe
haddii aad la socotayna sheer gareys u gaaro saaxiibo badan. Nabadino.